jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Mareykanka ayaa waxa ay deeq gaarsiiyeen dadka ay abaaruhu saameynta ku yeesheen ee ku nool degmada Guriceel. Faafahinta warkani waxa inoo haya wariyahayaga Cabdiqaadir Guura Barre. xilli ay jirto saameynta abaarta ku yeelatay qaybo kamid ah gobolka Galgaduud ayaa waxaa jiray biyo dhaamin loo sameeyay dadka sida gaarka ah abaarta u waxyeeleysay. deeqdan biyaha ayaa ka timid jaaliyad ku nool dalka Mareykanka gaar ahaan Santiago, masaajidada Abubakar Sadiq iyo Al-Huda, waxaana qaybinteeda iyo gaarsiinteeda u soo wakiisheen hay'ad lagu magacaabo Haro. deegaanada biyaha la gaarsiiyay ayaa ahaa kuwa ay ku noolaayeen dadka soo diirad raacay iyo kuwa deegaanka sida Calalaale, Shiishile, Maroodile, Laanle, Iidow, Gaboon iyo deegaano kale dhammaantood hoos yimaada degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud. qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iideystay ayaa dareenkooda ka hadlay. Maxamed Yaasiin baa la yiraahdaa, meeshaan joognana Calalaale la yiraahdaa. hay'adda Haro waxaan uga mahad celinaynaa biyaha ay noo keeneen iyo gargaarka ay noo soo qabanayaan. Ilaahay baa gargaar layaan uga mahad celinaynaa. Xaalayaal soo dhawaada hay-adda la yiraahdo Haro ayaa maanta waxay noogu timid meel la yiraahdo Barshiishiile gaar ahaan u dhow degmada Guriceel. Ilaahay baa wax ka fikra laakiin xagga bilowaadanka gargaarka inay wax la yaqaan ay nagu taraan sidaasan codsi ka nahay oo aan ka codsanaynaa dalka iyo dibadda walaalaha jira sidaasan ka codsanaynaa. waxaan halkan ka salaamaynaa deegaan ahaan Laanguule hay'adda la yiraahdo Haro oo ku guuleysatay biyo dhaaminta nana soo gaarsiiyay maanta naftan laga soo waraabisay oonkiina hayay. anigu mahad celinaynaa kana kula salaamaynaa. haddana waxaan naga codsiinaa inaan maaragtay baahidanadu aysan biyaha kaliya ahayn. madaxa arrimaha bulshada Guriceel Sheekh Cumar iyo Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Khaliif oo wakiil ka ah deeqdan biyaha ah ayaa ka warbixiyay halka ay ka yimaadeen. halkan waxaa la yiraahdaa deegaanka Daacul. waxaan maalmaha ku guda jiray biyo dhaaminta ee gobolka Galgaduud hay'adda Haro. meeshaan waxaa la yiraahdaa deegaanka Daacul. meeshaan maanta meelo badan ayaan soo marnay oo deegaanka kamid ah oo biyo ka soo qaybinay. meeshaan deegaanka Daacul baa la yiraahdaa. waa meelaha sida gaarka ay u saameysay abaarta ka jirta wadanka guud ahaan gaar ahaan deegaanka Galgaduud. biyahan iyo waxyaalaha aan sameynay muddadan ee ku saabsan biyo dhaaminta iyo ummadda loo qaban karo waxaa soo dhiibay hay'adda Haro gaar ahaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka waqooyiga Ameerika gaar ahaan magaalooyinka gobolada Minnesota iyo San Diego ama California San Diego, masaajida gaar ahaan masaajidda Abubakar Sadiq iyo Al-Huda. waxaan u sheegaynaa amaanadii aad soo dhiibteen iyo dadka walaalihiina. Cabdiqaadir Guura Barre, TV-ga caalamiga Universal, Guriceel.